السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحابتي qaaliga ah ee ku xiran duco channel kusoo dhawaada muuqaal aan uga hadli doono duco aad u qiimo badan. Ducadan waa ducada la akhristo waqtiyada qunuudka, taajudka oo kale marka la tukanayo, salaada u dambeysa ee witriga ah, ducada imaamka uu ku duceynayo ee dadka oo dhan ay aamiin dhahayaan. Ducadaas qofka haddii uu macnaheeda fahmayo waxa uu aamiin leeyahay Ilaahay waa uu siinayaa. sidoo kale waqtiyada dadka ay saas u kulansan yihiin oo Ilaahay u baryayaan ay aamiin wada leeyihiin, dadkaas oo dhan eber ma wada ahaan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dhowr qof, hadiiba 10 qof, 20 qof, 5 qof, 3 qof oo ducadooda ay aqbal tahay, dad uu Ilaahay jecel yahay inay dadkaas ku jiraan ay u badan tahay weliba tiro ah. dadkaas ayaga ah aamiintoodana waxay leedahay fadaa'il gaar ah oo Ilaahay waa uu aqbalaa. sidoo kale marka ay dadka aamiin wada dhahayaan, malaa'igtana way u duceysaayo aamiin way la dhahdaa. haddii ay kulmaan aamiinta dadka iyo midda malaa'igtana, waxaas oo dhan Ilaahay wuu ka aqbalaa oo dadkaas oo dhan waa uu siiyaa. muhiimadda marka aan ducadan uga hadlayo waxay tahay, marka imaamka ducadan uu ku duceynayo, waxaa muhiim ah inaad fahmayso waxa Ilaahay lagu weydiinayo ee dadkaas oo dhan looga baryayo. sharuudaha ducada lagu aqbalana waxaa ka mid ah inaad fahmayso waxa aad Ilaahay ka baryayso, waxa aad aamiin leedahay inaad garanayso. waxaan ka baranay saxaabadii iyo taabiciintii in la qunuudo waqtiga witriga la tukanayo. ducada ugu caansan ee xilligaas la akhristo waxay ku jirtaa musnad Imaam Axmed, waxaana soo wariyay Al-Xasan ibn Ali Ilaahay ha ka raali noqday. waxa uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa i baray duco si aan u akhristo qunuudka witriga. ducadana waa tan: Allahumma ihdina fi man hadayt, allow na hanuuni sida aad u hanuunisay dadka hanuunsan, wa caafina fi man caafayt. marka la soo gaaro ereyga al-caafiya, luqadahan kale oo dhan turjinkiisa way ku adag tahay, sababtoo ah waa erey luqadda Carabiga macnooyin badan isku haysto. waxaa la soo wariyay in Al-Cabbaas oo ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam adeerkiis uu maalin u yimid oo ku yiri nabi allow i bar duco. markaas ayaa waxa uu yiri waxaad dhahdaa Allahumma inni as'aluka al-caafiya. Al-Cabbaas Ilaahay ha ka raali noqdee waxa uu yiri yaa rasuulallah, waxaan rabaa wax badan. ducadan waxa uu arkay inay duco gaaban tahay. wuxuu yiri waxaan u baahanahay wax badan ee bar duco dheer. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri wax caafiya ka badan oo Ilaahay la weydiisto ma jirto. wax walba ayada ayaa koobtay. haddaad hesho caafiyo, dhib ma arkaysid. waxaad ku noolaanaysaa nolol aan stress lahayn, nolol aad Ilaahay uga mahadceliso wanaageeda oo fiican oo ku cibaadeysato oo farxad ayaad adduunyada ku haysanaysaa. waa haddii aad caafiyadaas Ilaahay weydiisato. markaad leedahay wa caafina fi man caafayt, waxaad Ilaahay weydiisanayaan dadkaas oo dhan in uu siiyo wanaag oo dhan adduunyada, inuu ku siiyo farxadda, dhibaato dhan laga ilaaliyo. waa khayr oo dhan haddii la soo koobo. wa tawallana fi man tawallayt, ku aad ilaalisay aad magangelisay Ilaahay oo nagu dar. wa baarik lana fi ma acdayt, waxaad na siisayna Ilaahay oo noo barakee. waxaa lagu siiyey caafimaad, waxaa lagu siiyey diin iyo iimaan, waxaa lagu siiyey awlaad, waxaa lagu siiyey hanti, waxaa lagu siiyey wax aan la soo koobi karin. wa in tucuduu nicmatallahi laa tuxsuuha. indhaha, lixaadka, aqliga, nimcooyinka Ilaahay ku siiyey waa mid haddii noloshaada inta ka dhiman tiri lagu dhaha aadan soo koobi karin. waqinaa sharra maa qadayta, Ilaahay oo sharka aad soo dejisayna naga dhowr. fa innaka taqdii walaa yuqdaa calayk, innahu laa yudillu man waalayt. Ilaahay qofka xiriirka la leh ee amarkiisa u hoggaansan ma dhibaateeyo. tabaarakta rabbana wa tacaalayt.
ducadan oo kaliya ma ahan ducooyin badan oo dheer ayaa la akhriyaa dhammaantoodna dadka waxtar ayay u leeyihiin. Ilaahay ha inoo aqbalo. Waxaa ka mid ah duco dadka loo weydiinayo in kuwa jiran uu Ilaahay caafiyo, kuwa kurbaysan Ilaahay faraj uu u furo. Waxaa si guud loogu duceeyaa muslimiinta Allahumma aciz al-islaam wal muslimiin wa adil ash-shirka wal mushrikiin. Way fara badan yihiin ducooyinka. Qaabka ugu fiican ee marka imaamka uu duceynayo xitaa haddii aadan fahmaynin yani luqadda carabiga oo ducooyinka macnahooda aadan garan karin, waxaa laga rabaa inaad isxasiliso oo aad dhaqdhaqaaqa yareyso si fiican aad u dhageysato erayada imaamka. Ilaahay wuxuu leeyahay awood uu kugu fahansiin karo xitaa adigoon luqadda fahmaynin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.